بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back markale. runtii waxaan u dhex jirnay chapter 2 qaybtii imtixaan ahayd. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qayb yar oo runtii extra yani dheeri ah oo laakiin muhiim u ah inaan mar kastaba aan fahamsanaano. dad badan oo arkay social media ka soo codsaday in aad loo bayaaniyo. runtii waa qayb aad u muhiimsan. waxaan badanaa ka hadashaa sida information la soo ururiyey looga dhigi karo qaab boqolley ah, marna boqolleygii looga dhigi qaab tira ah. So marka statistically yani micno ayay sameynaysaa in yani loo dhigo xogta la gudbinayo marna qaab boqolley ah marna qaab number caadi ah. tusaale ahaan haddii aan haysatana tirooyinkaas almost 20 tiro haysta guud ahaan 20kii tiro markaan qaybinay ama yani meel waxyaabo khaas ah aan ku fiirin ama gender ku fiirinay okay genderka مثلا female male-ka 20kaas ruux markaan fiirinay taqriiban 8 ruux waa female waaye maxaa soo haray 12 ruux maxay waa male waaye. So marka yani micno ayay sameynaysaa markii loo fiirin waxay marna qaab boqolley ah marna qaab number ah. tusaale ahaan markaan dhahayo 20 ruux ayaan meel ku jirta markii loo fiiriyo sexigooda ama genderkooda markii loo fiiriyo 20kaas ruux 8 ruuxna female waaye 12 ruuxna male waaye. qaabkaas waa soo tabi karnaa. waxaa kaloo jira qaab boqolley ah oo su-aal meesha taala ah maadaama aan ka hadlayno sex issue ama gender issue maxay ka hadlayno yani boqolkiiba intee ayaa female ah boqolkiiba intee ayaa male ah. hadda maxaan ku sheegnay qaab number ah. marka waxay 20kii ruux ee meesha joogtay 8 ruux ka mid ah female waaye 12 ruux ka midna maxay male waaye. marka waxaan ku sheegnay qaab number ah. marka sideen ugu sheegi karna maxay qaab boqolley ama tusaale ahaan waxaa lagu weydiiyey boqolkiiba intee ayaa female ah boqolkiiba intee ayaa male ah. marka ciwaankan maanta wuxuu yahay sideen boqolley uga dhigi karnaa number iyo sideen number uga dhigi karnaa boqolley. marka waa inaan fahmnaa labada waa two way communication waa marna waxaa haystaa number haystaa boqolley ka dhig marna boqolley haystaa number ka dhig. marka sidee isu bedeli karnaa qaabka xisaabeedka ee loo qoro marna boqolleyda ah marna number ah. marka bal kaasiro ka kooban aan soo qoro bal ila soco tusaale ahaan markaa soo qaato haddaan tusaale soo qaato مثلا xisbiyada dalka markii loo codeeyo vote-ka codkaas markii la tirinayo laba qaab waa marna waxaa kala xisbi hebel wuxuu guuleystay intaasoo kursi waa tiro waa marna waa boqolley. tusaale ahaan waa partiga ama u bixi Soomaali xisbi A xisbiga B xisbiga C xisbiga D. xaggan waxaan bixinaa maxay xaggan waxaan bixinayaa wadarta ama total ama u bixi wadar isu geynta guud. kan maxay people votes dadkii codeeyey xagga u bixi oo number ah. kan aan u bixi maxay boqolley marka aan bedelo boqolley. tusaale dadka guud ee codeeyey tusaale ahaan aan soo koobo dadka guud ee codeeyey waa 210 ruux codeysay tusaale ahaan ayaa codeysay. intii codeysay markaan fiirnay xisbiga A waxaa u codeeyey 80 ruux xisbiga B waxaa u codeeyey 95 ruux meeqaa maraynaa 170 iyo xoogaa soo ma ayaa marnaa. xisbiga C
waxaa u codeeyey soddon qofood wixii soo harayna xisbiga waxaan siin doonaa xisbiga d meeqaan haysanaa waxaan haysanaa 80 ruux lagu daray 95 ruux lagu daray 30 ruux waxa weeyaan 205 ruux waaye kadibna waxaan ka jaraynaa 210 jar 205 laga jar 210 205 laga jar 210 yes waxaa soo haray 5 shanna waa xisbiga waxay codeysay d marka ay isu geyno waa inay keentaa 210 ruux tusaalaha fiiri 80 ruux lagu daray 95 ruux lagu daray 30 ruux lagu daray 5 ruux waa 110 ruux waaye soo markaan u sheegayo waxaan dhihi karnaa 210 ruux ayaa axsaabtan oo xisbiga a iyo b iyo c iyo d u codeysay markaan fiirnayna 80 ruux codka waxay siiyeen xisbiga a 95 ruuxna waxay siiyeen xisbiga b 30na xisbiga c siisay meesha ay 5 ruux kaliya ay ku siiyeen xisbiga d marka waxaan kusoo gudbinay macluumaadka maxay qaab tiro ah marka maanta waxaan rabnaa sideen ugu soo gudbi karnaa marka qaab boqoliya marka oo macnaha haddii lagu weydiiyo xisbiga a boqolkiiba intee codeysay see loo qoraa xisbiga b-na boqolkii intee codeysay loo qoraa xisbiga c iyo d so waxaan rabnaa maanta inaan fahamno waana very basic issue waxay maahan seen u fahmi karnaa haddii lagu siiyo tiro seen u dhigi karnaa boqoley wa bilcagsi haddii lagu siiyo boqoley seen u dhigi karnaa waxay tiraade marka aan fiirin marka okay waa furuuda marka 80 ruuxa codeysay out of 210 marka maxaan dhihi karnaa waxaan dhahaynaa keliya waxaan samayn doonaa 80kii ruux oo loo qeybiyey 210 waxay noqotay 0.38 ayay noqotay kan marka waxaan u naqaanaa jajab haddaan ka dhigno boqoley waxaa leeyahay qiimahan ku dhuf 100 si looga dhigi boqoley lagu dhuftay 100 waxay noqotay 38 boqolkiiba equal leh boqolkiiba 38 waxay u codeysay xisbiga loo yaqaan a maxaa soo haray 95 ruux ayaa codeysay out of 210kii 95 loo qeybiyey 210 waxay noqotay 0.45 23 kan markaan ka dhigno kan waa qaab oo jajab ah markaan ka dhigaa boqoley ku dhuf 100 wuxuu noqon doonaa maxay wuxuu noqon doonaa 45 boqolkiiba maadaama soo gagaabin point soo gagaabnay laakiin maadaama fiiri kan uu 5 ka yahay maxay kan la buuxi karin waxaan qaatay boqolkiiba 45 ayay noqotay xisbiga loo yaqaano b waxaa inoo haray xisbiga c waa 30 loo qeybiyey 210 wuxuu noqday 0.28 markaan kan ku dhufto 100 aan ku dhufto maxay wuxuu noqon doonaa 14 boqolkiiba okay maxaa ku soo haray kan ugu dambeeyo oo loo yaqaano maxay midka loo yaqaano bartiga ama xisbiga loo yaqaano maxay d markaan d fiirno waxaan 38 lagu daray 45 lagu daray 14 okay xisbigan loo yaqaano maxay d waa 5 loo qeybiyey 210 wuxuu noqday 0.0238 ka markaan soo gaaxay ku dhufo wuxuu noqon doonaa maxay waa 0 markaan ka dhigin kan boqoley wuxuu noqon doonaa 2.3 boqolkiiba soo marka waxaan rabnaa sharci ahaan waxaan rabnaa markaan isu geyno waa inay keentaa boqolkiiba boqol kaas khasab waaye soo marka maadaama kan aan soo gagaabiyey point soo ignogareeyey kan aan point 40 xoogaa point aan kasoo tegey kan aan point ka tegey pointiga uruuray kan ka maqan kan waxaan dhihi karnaa taqriiban waa 3 boqolkiiba because kan markaan qoraya 14 maxaa raacsanaa fiiri kan maxaa raacsanaa pointiyo kan maxaa raacsanaa pointiyo soo ma maadaama pointiyo raacsanaayeen pointiyo raacsanaa kan ku buuxi kan maadaama 2.3 ahaa maxay
maxaan ka dhignay 3 boqolkiiba soo marka ay sugayno 3 14 45 38 waxay noqon doontaa inta marka sugayno waa inay keentaa boqolkiiba boqol maxay tahay marka dadkan meesha ku jira boqolkiiba boqol qof ma ka tagin boqolkiiba boqol dadkan waxay u codeeyeen xisbiga maxay A iyo B iyo C iyo D xisbiga A waxaa codka siiyey boqolkiiba 38 xisbiga B codka waxaa siiyey boqolkiiba 45 xisbiga C codka waxaa siiyey boqolkiiba 40 xisbiga D codka waxaa siiyey boqolkiiba 3 siisa markaan fiirnay 210 qofood boqolkiiba boqol كل وعدي معنا كم حكوا بقولك بقول وعدي السيد كان قف ما كتجين عدك وحسيان حزب A حزب B حزب C حزب D سيان سو كل سيان this way مركا نعم فهمني سيدا الله قد يقام حي numbers بقول لي إسلا سيدا قال محمد أودنا إن بقول لي أدي لقصيه أو كان لقى قريب حي أن كان يقام حي كان سعيد كرم تسألها مركا فيريو كان أقصي ودنا كسو قاد تسالة إن قيبتان والغا قري صالحان قيبتان والغا قري قيبتان ما هيسنا لكن حان هيسنا لا بقول توقفوت إن عديان بقول كي صوت سجد بقول كي فرتشن بقول كي 14 بقول كي 3 مرك هدي لعل لا بقول توقفوت كي تريد جود لوسيو برسنتج كذا لوسيو سيدي لو سو عليا qaabkan waa qaabkaan dhahaynay haddii lagu siiyo tiro waxaan ka dhigi karnaa boqolley haddii lagu siiyo boqolleyna waxaan heli karaa maxay tiradii marka sideen ku heli karnaa haddii kan laga qari maxay laakiin lagu siiyo tiradii guud lagu siiyo maxay waxaan sameyn karaa simply inaan soo ogaado 210 qofood oo boqolkiiba 38 ay ka codeysay xisbiga B ima soo ruuxay noqon kartaa maxay markaan ka dhigaayo tiro waa heli karnaa oo maxaa leeyahay marka حاجة ما تري وحندي كرنا وحندي كرنا صالحان فيري نمبر ترهان نمبر فتح بتشتغل نمبر أوكي عندنا ما دام لو بقى تروح هاي ذكي بقول كتات أيدنا على شيء ما حد يجرني صدّن أنا وحندي لو بقول يتوان كي قفوت waxaa ka codeys 0.38 waxay noqotay 79.8 waxay noqotay 80 yes okay again markaan fiirino boqolkiiba 45 ayaa codeysay oo intaan ka mid ah markaan ka dhigo boqolkiiba maxaa waa 0.45 marka 0.45 kan ku dhuf marka 210 فوت أي هاين بقول كي فرتني يشنا عدسي و 0.45 equal to هاي كدب و very simple واحد سنة لا بقول تون لو رفتي أفرتن 0.45 وهاي نقطة سجاشن أفر نبيع شنوة يس وهاي نقطة سجاشن أفر نبيع شن وهاي نقطة سجاشن أفر نبيع شن ما دام قف ابن آدم وهاف جرين maxaan qasab inaan buuxiyo waxay noqotay 95 qofood yes waxay noqotay 95 kii waxay noqotay 80 again waxaan rabnaa labadii 110 qofood markaa fiirinay boqolkiiba 14 ayaa codeysay xisbiga loo qeexay C boqolkiiba 14 waxaa loo qoraa 0.14 marka waxaan dhihi karnaa labadii 110 kii waxay noqotay 0.14 ku dhufo waxaa soo baxayo لا بقول توان لو 0.14 وهي نقطة 29.4 almost هاي 29.4 معني كنا صدّن معني كنا صدّن خفض عليه كنا أوكي إن لو بقول توان كمان كان فيرني بقول كي ويسدح أيام حي كعود السي أيام السي حسبي جم حي دي ومحل أمريكا لودي بقول طبعاً كي تعمل 0.03 وكان بهاي نقطة لو بقول طبعاً لو لفتي 0.03 وهاي نقطة 6 أنا ما دام كانوا بوينت كان أقل هاي ما دام كان
waxaan dhigaa 210 0.02 yes waa 4.4 wana waa 5 waa 4.2 waa 5 buuxi anyway wax kale ma waxa ka wadna marka intaan isu geyno waa inay keentaa 80 95 soddon shan waa inay keentaa 210 marka just simple way markaa fiirno كم عاني سنة حزب A E B E C D إمسرو الله بقول توم في سنة مركب في التراهان سديت قفود عدكو حسيسي حزب جان A C C 95 نا وكم ده الله بقول حزب B C C صدقنا كم ركوات تروى مع الرجني بقول لي أو محاسماني كلية إن نام حي أسديت قفود أنا قابلني لا بقول توم كي وحي نقطة بقول كيبا صدر زيادة نقطة إذا سيدو كلام حي سلاش شندق فوت out of أو كم ده لا بقول طبعا كي هاي نقطة أفرتن إيشان بقول كيبا سيدو صدق كان فوت أو كم ده هنقرأ و30 out of أما صدق كي فوت أو كم ده 210 كي هاي نقطة 0.14 أنت واي شن فوت أو كم ده حي 210 أنت واي مركو حانسنا qaabkii boqolleyda again waxa u rognay qaabka asalka ah maxay kana maxaa sameeynay 38% imis ruuxay ka tahay this one su'aasha soo koob marka marka akhrinayo wax kale maahan waxaan ka wadnaa 80kii ruux 80kii ruux boqolkii intee ayuu ka yahay 210 boqolkii 8 waa 9 ruux haddii loo fiiriyo 210kii boqolkii intee ka tahay waa 45 waaye 30kii ruux haddii loo fiiriyo 210kii ruux boqolkii meeqa ka tahayna 14 waaye 5tii ruux haddii loo fiiriyo 210kii meeqa ka tahayna boqolkii 3 waaye kana fiir marka kan waxaa laga wadaa 38 boqolkiiba markii loo fiiriyo 210kii maxay ka tahay 8 ruux waaye أنا عكس حر أنكو عليو معنا أنا كم وتيرو كم بقول لي واي معنا كمركا 38 كي سوري بقول كي 38 كي مركي لو في ريو لا بقول 8 كي ما يخرج روحك تاعي ستيت الروح بقول كي 14 كي بقول كي فرت شنتي امس روحك تاع لا بقول 8 كي 95 قفضوا كم بيرسونس واي كنا بقول لي واي اوكي بقولكي 14 امس الروح كتهاي لا بقول 8 صد الروح بقولكي 6 امس الروح كتهاي لا بقول 8 محي ومحي و 4.2 و 5 anyway كان بقول لي كان تريد سو علني كان بقول لي واي marka asalka maxay waxaan asalka tan ay sanay tan waa sameey karnaa وبالعكس hadii tan lagu siiyana tan waa sameey karnaa waa ka markii hadii qaybta lagu siiyo numberka boqolley waa ka dhigi karnaa qaabkan way hadii lagu siiyo boqolleydii waxa shardi ah in lagu siiyo tirada guud maxaan bedeli karaa maxay kana keeni karnaa marka waxaan rajaynayaa kan waa ciwaan gooni ah aan rabnay maxay in la fahmo sidii la isugu bedelo boqolleyda iyo tirada caadiga ah waa maasantihiin thank you so much